isleedahay hal thumbnail ayaa bedeli kara jihada channel YouTube ah. Anigu waan isku dayay waxaan u sameeyay Cabdicasiis thumbnail bilaash ah. Laygama dalban mana filayn wax jawaab ah. Laakiin waxay dhacay waxay iga dhigayaan inaan maanta muuqaalkan idinla wadaago. Waa sheeko dhab ah oo ka hadlaysa hal-abuur, fursad iyo codsi shaqo. Haddii aad YouTuber tahay, muuqaalkan waa makaagi. Markii aan arkay content-ka Cabdicasiis samaynayo, waxaan dareemay hal arrin. Tayada muuqaalku wuu sareeyaa, laakiin thumbnailku ma muujinayo tayada muuqaalka. Taas waxay igu dhiirigelisay in aan sameeyo thumbnail bilaash ah oo leh midab xooggan, qoraal cad iyo naqshad casri ah. Ujeedkaygu wuxuu ahaa in aan muujiyo hal thumbnail oo saxsan inuu bedeli karo jihada YouTube channel. Waxa uu ahaa thumbnailku sidan markii hore. Waxaanu bedeli doonaa sidan inagoo isticmaalaynaa software-ka caanka ah ee Photoshop ee la dhamayso design-ka ilaa dhamaadkiisa. Finished. Ugu dambayn, thumbnailkan bilaashka ah ma ahayn mid iska yimid. Waa mid aan u qabtay si qalbiyan ah si aan ugu muujiyo tayada shaqayneed. Emailkan u dirnay Cabdicasiis weli kama soo jawaabin, wax falcelin ahna kama hayno. Laakiin waa wax iska caadi ah oo qofku mashquulsanaan karaa oo waqtiga ciriiri ku noqon kara. Laakiin aanu waan sugayaa, rajana waxaan ka qabaa haddii uu arko dadaalkayga ayna dhex marto wada shaqayneed rasmi ah. Haddii aad garanayso qof u baahan thumbnails tayo sare leh, igala soo xiriir si xor ah nambarka baayaha saaran. Haddii aad ka hesho content-kan soo gudbiyo, commentiga, share-ta iyo subscribe-tu waa dhankaaga daawade. Mahadsanid.